إن أي maanta dalku ku tallaabsaday inaan yeelano inuu shacabka Soomaaliyeed wax doorto oo uu soo baxo oo aan kaga dayano dimuqraadiyadda dalkeena Soomaaliya waxa wax laga doortaa oo dimuqraadiyad lagu doortaa oo haddii Ilaahay ilaa 2 cisho kadib ka dhacaysa dalka aan ka soo jeednan xildhibaanada u nahay dimuqraadiyadda dalkeenu ku tallaabsan lahaa shuruucda aan wadnaay waa shuruucdii la noo qaybiyay waa ta dalka lagu hagaayo laguna hogaaminayo ummadda Soomaaliyeedna ay codkooda ku dhiibanayaan idinkana waxaan niga filaynaa shacabka Soomaaliyeedow arrinta maanta aan qaadnayna nala qaadaan nala hirgelisaan Soomaalinimada leego Soomaaliya way dhaqaaqday waxay ku dhaqaaqday wadadii horumarka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan marka u horeysa u hambaleynayaa xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si aqlabiyad loo ansixiyay habraaci ay ku wada shaqeyn lahaayeen taasoo ah ifafaaladii bilowgii dimuqraadiyadda dalkeenu ku tallaabsan lahaa shuruucda aan wadnaay waa shuruucdii la noo qaybiyay waa ta dalka lagu hagaayo laguna hogaaminayo ummadda Soomaaliyeedna ay codkooda ku dhiibanayaan oo ay ku dooranayaan muwaadinkay u gartaan dalka iyo dadka inuu samato bixinayo waxaanu ku garab taaganahay waxa keentay xukuumadda waan ku garab taaganahay haddaan nahay labada gole waayo waa dantii dalkayaga iyo dadkayagu lahaayeen ee awlaadayada mustaqbalkeeda ahayd manu soo gaadhin aniga in la hadlaya waligay doorasho qof iyo cod maan arkin mana soo gaadhin mana aqaan marka waxaynu dhammaanteen farxad inoo ah idinka iyo annagaba haddaad tihiin shacabka Soomaaliyeed in ay maanta dalku ku tallaabsaday inaan yeelano inuu shacabka Soomaaliyeed wax doorto oo uu soo baxo oo aan kaga dayano dimuqraadiyadda dalkeena Soomaaliya waxa wax laga doortaa oo dimuqraadiyad lagu doortaa oo haddii Ilaahay ilaa 2 cisho kadib ka dhacaysa dalka aan ka soo jeednan xildhibaanada u nahay baa madaxweynaha iyo golahooda shacabka baarlamaankooda labada aqalba ku doorta idinkana waxaan niga filaynaa shacabka Soomaaliyeedow arrinta maanta aan qaadnayna nala qaadaan nala hirgelisaan Soomaalinimada leego Soomaaliya way dhaqaaqday waxay ku dhaqaaqday wadadii horumarka waxaan leenahay Soomaaliya way guuleysatay ha guuleysato shacabka Soomaaliyeedow midnimada ku dadaala iyo sidii aad qarankiina uga saari lahaydeen dhibaatooyinka badan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh